farxadda waa waxa dadka oo dhan ay isku waafaqeen raadinteeda balse waxay isku khilaafeen qeexitaankeeda maadaama ay isku khilaafeen qeexitaankeeda sidoo kale waxay isku khilaafeen dhabaha lagu raadinayo dadkii waxay noqdeen kuwa raadinayo farxadda dhabta ah kuwa raadinayo farxad malawaal ah iyo kuwa raadinayo farxadda aan suurtagalka ahayn maantana xalqadeena waxaan ka hadlaynaa farxadda aan suurtagalka ahayn ee ku soo dhawaada 1971 ayaa magaalada Davos ee Switzerland lagu aasaasay madasha dhaqaalaha adduunka World Economic Forum. Shir sanadeedka ay qabato madashaas waxaa ka soo qayb gala shakhsiyaad dunida saameyn ku leh dhanka dhaqaalaha, siyaasadda iyo hantiilayaasha iska leh shirkadaha waaweyn ee dunida ka shaqeeya. Laakiin arrinta la yaabka noqotay ayaa ahayd in sanadkii 2024 lagu casuumay wadaad Buddhist ah ee lagu magacaabo Matthew Ricard asagoo halkaas ka sheegay inuu yahay qofka dunida ugu farxadda badan. sidoo kale kalfadhiyo gaaray ilaa 25 kalfadhi ayaa waxa laga dooday arrimo aan xiriir la toos la lahayn dhaqaale iyo waxa la halmaala sida tiknoolajiyada lagu nasto caafimaadka jirka iyo kan caqliga cilmiga neerfaha iyo daweynta dhaqanka bulsho iyo xil lamid ah doodahan dhamaantooda waxay isugu biishabanayaan raadinta farxadda arrinta isweydiinta leh ayaa ah sidee madal dhaqaale dhiirigelisa faa'iidada iyo tartanka dakhliga uu diiradda ku saari karaa arrin ruuxi ah sida farxadda William Davies ayaa buugiisa The Happiness Industry ku sheegay dadka waxay u maleynayaan in nidaamka hanti-goosadka uu ku burburi doono duruufo dhaqaale ama dhacdooyin musiibo dabiici ah oo dakhliga hoos u dhigi doonta laakiin cidna kama fikirin in nidaamkaas burburkiisa sabab u noqon doono caajiska iyo daalka shaqaalaha kaliya tirkoobyada iyo daraasaadka la sameeyay waxay sheegayaan in shaqaalaha aanay dareemaynin farxad kaliya ay gaarsiinayso dhaqaalaha khasaare gaaraya $50 bilyan sanad walba daraasado ayaa sheegaya in la mid ah kororka tartanka dhaqaale raadinta uu barbar socdo sidoo kale walwal iyo walbahaarka kororkiisa anagoo taasi tix raacayna ayaa waxa uu sheegaya mid ka mid ah ka qaybgalayaasha madasha dhaqaalaha adduunka in xalka ay raadinayaan laftirkooda ay markii hore qayb ka ahaayeen abuuristiisa asagoo ula jeeda in shaqaalaha aad loo mashquuliyay shaqooyin waqtiyadooda aan xad lahayn iyo dhiirigelinta kordhinta saacadaha shaqada lagu helayo lacago ama dakhli dheer ah fahamka farxadda waa mid mar walba isbedel ku yimaada casri walbo kan dambeeya ayadoo la jaan qaadayso xadba sida ay tahay heerka akhlaaqeed ee bulsho tusaale arosto wuxuu qof faraxsan u yaqaanaa qofka wanaagsan ee toosan ee aan saameyn ku lahayn macmacaanka gaaban ee adduunyada laakiin Epicurus wuxuu farxad u ku qeexayaa dhadhanka macaan ee aad dareemayso jir ahaan iyo in aadan dareemaynin wax dhiba balse maanta farxadda waxay noqotay in laga raadiyo dadaalka iyo hardanka kaliya aad ku jirto waxayna ku soo koobantay in qof walba isku filnaado iyo inuu raadiyo horumar shakhsiyadeed oo ka sareeya inta hareerihiisa laga helayo ama uu noqdo qof aan la helaynin qof la mid ah bulshooyinka reer galbeedka horey ma aysan ugu faafsanayn aragtida ah in loo ordo raadinta farxadda dhameystiran balse waxay bilaabatay qaybtii dambe ee qarnigii 20aad waqtigaas oo dhidibada loo taagay shirkadihii suuqgeynta kuwaas oo iibiyay halhayskii farxadda dhameystiran ahaa si ay bulshada ugu riixaan inay iibsadaan badeecadaha ay suuqgeynayaan laakiin dhaqankii ahaa in qofka uu hanto wax badan iibsadana wax walba la soo saaro kama dhigin kuwa faraxsan balse taasi waxay abuurtay caalam ku dhisan tartan iyo hardan aan dhamaad lahayn waxayna ugu dambeyn ku keentay dadka inay noqdaan kuwa ruux ahaan u maran in ka badan intii hore ay ahaayeen haddaan dib u eegno qeexitaankii farxadda ee ahaa xiriirka ka dhaxeeya waxa qofka uu rajaynayo iyo waxa uu qofka uu helayo maanta markaan waaqaca dunida fiirino waxaan arkaynaa in faalooyinka faraha badan iyo bandhigyada aan xadka lahayn ee dadka loo soo bandhigayo ay ku dhalinayaan inay rajeeyaan waxaasi ama ay hantaan taasoo niyad jab ku ridaysa markay ogaadaan in xaalkooda dhaqaale iyo dakhli ahaanba uusan suurtagelinaynin hamiga iyo rajooyinka aan macquulka ahayn ama aad ay u fog tahay in la suurtageliyo waxay qayb weyn ka yihiin qalbi jabka iyo fashilka ku habsada jiilasha casriga nool tusaale jiilkan uma arkaan kuwa ay ku helaan xasilooni dhaqaale iyo dakhli aamin ah balse waxay kaloo u tahay dareen nafsiyadeed iyo aqbalaad bulsho ay helaan hadba nooca shaqo ay hayaan xaalimka ku takhasusay cilmiga kombiyuutarka Cal Newport ayaa sheegay dabagal iyo baaris lagu sameeyay erayada iyo orahyada lagu baahiyay internetka iyo social media
20 sano ugu dambeeyay ayaa waxa lagu ogaaday in oraahda waxaad jeceshahay raadso ay ahayd mid aad u soo noqnoqotay waxayna khadka ka saartay oraahdii ahayd waxaan rabaa shaqo aamin ah ayadoo la og yahay in ku qanacsanaanta shaqada aysan ahayn mid dhab ahaan u jirta inta badan balse ciladu ay ku jirto aaminaada qofeed taasoo ka imaanaysa raadinta shaqo aad uga sareysa kuwa dad kale ay shaqeeyaan ayna aad uga muuqato markii loo barbar dhigo inta la midka ah tee wacan nolol farxad leh ama nolol macno leh su'aashan waxa cinwaan uga dhigay qormo uu daabacay Professor Roy Biomaster oo falsafada ka dhiga jaamacadda Florida ayaa sheegay in farxadda iyo nolol maqaam macno leh ay yihiin laba macno oo isku milan ee aan la kala saari karin mar walba qofka diiradda uu saarayo hadaf nololeed ee sareeya macno weyn ku fadhiya waa mar walba uu deganaan iyo qanacsanaan uu dareemayo cilmi baaraha Sacuudiga u dhashay ee Abdallah Luhaybi ayaa wuxuu qabaa in murugada iyo farxadda nololeed aan loo darsin karin sida inay yihiin wax nolosha gooni uga taagan laakiin labadaasi mid walba waxay u dubdhaxaad iyo laga maarmaan u yihiin nolosha inta aadanaha uu koonkan ku sugan yahay fahamka farxadeed iyo midka murugadaba lama qeexi karo ayadoo aan la soo hadal qaadin fahamka guud ee nolosha uu eebe aadanaha u abuuray noloshana gabi ahaanba lagama takhalusi karo murugada iyo caqabadaha nololeed bal qofka mu'minka ahi wuxuu ku helayaa raali ahaanshaha eebe iyo ajar hadduu uu ku sabro arrinkaas ilaahiisna tara saarto intaan ka gaarayno xalaqad midaan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo